guud ahaan gobollada Sanaag iyo Awdal waxay caan ku yihiin ciyaarta dhaqanka siiba ciyaarta saylicida oo kale haddaba sidee ay ciyaarta saylicdu ay ku timi waxa weeye taariikhdeedu dadka dulka degan baa samaystay dhalinyaradii markaa deganaa haween iyo rag lahaa ayaa samaystay oo dhaqan u noqotay caadadooduna way ahayd dadkuna wuu kala gedisnaayo cafari bay lahayd hindi bay lahayd waxbaan kaaga taataaban doonay waxay lahayd ma garanaysaa xabuushi codku dhowr qaybood buu ahaa qaybta ugu horeysa waxaa loo yidhi muliyo hoysaase muliyeysaase hoyahe muliyo hoy roboy muliyo hoy roboy muliyo robo hoyahe muliyo hoy wayka muliyo wayka hoyahe marka gabadha muliye ee ku dhex jira gabadhaas waxa doonayay nin baa doonayay gabadhii ninkii marka uu jawaabaya ya muliye roboy muliye saasay Soomaaliya halkuu yiri ninkii wuxuu leeyahay gabadh buu doonaya gabadhii buu jawaabaya ya waa kuwan maartay uu jawaabay wuxuu leeyahay hoy roboy muliye saasay hoyahe muliyo hoysaase muliyo hoysaase hoyahe muliyo hoy roboy muliyo roboy hoyahe muliyo hoy wayka saasi maamay wayka muliyo wayka hoyahe saasi ugu jawaabay diyaar baanay waykaadaas maxaa markaa iyaduna oranaysaa jawaabaysaa iyadu waatan isaga dalbaday Soomaa iyadu waatan dambuliyaaba la yiraahdo isagu magaceegii u doontay gabadhii hees way noqotay markaa la isku yimid oo lagu ciyaaro oo dhaqana sida aad ka maqlayseen codka Maxamed Cismaan Hiriir waxaa jirtay gabadh astaan u ahayd ciyaaraha saylicida sidoo kalena sumad u ahayd jacaylka iyo ciyaaraha dhaqanka oo la oran jiray muliyo sida cilmi boodhari uu caan uga yahay gobollada saaxil togdheer iyo hargeysa ayay iyana caan uga ahayd gobollada Sanaag iyo Awdal haddaba muliyo qof noocee ayay ahayd sidee bayse sheekadeedu ay caan ku noqotay kuna hirgashay muliyo gabar bay ahayd taariikh dheer ku leh ciyaaraha oo ciyaari jirtay waxaa laga soo qaadi jiray lawicaddo buurta lawicaddo ee madow oo markaa ingiriisku deganaan jiray ilaa halkan baa lagu keeni jiray taariikhda muliyo haddaan kaaga sheekeeyo waxaana loo keeni jiray oo caado u ahayd iyo dhaqan dadka dhulka degan rag iyo dumarba waa la soo galbin jiray arooska muliyaa la tegi jiray taariikhdeeda la soo raacayay sida ay ku dhaqmi jirtay ama caadooyinka ay sameyn jirtay ayay ka mid ahayd markaa muliyo goormay dhulka ku noolayd taariikhdu waxay ku aasan tahay meesha la yiraahdo buurta madow lawicaddo ka sokayso lawicaddo meesha agteeda daar waxaa jira buur yaro lawicaddo ka sokayso bariga hore ingiriisku deganaan jiray taariikh ahaan oo ahayd halkaasaa lagu aasay halkaasaa la tegi jiray oo laga soo galbin jiray arooska khadiija maxamuud xargeeye waa hooyo ilaa 70 sano jirtay waxay ku dhalatay magaalada Saylac welina ay ku nooshahay waxaana ay ka mid tahay dadka ciyaaraha hidaha iyo dhaqanka loo daba fadhiisto maxay inooga sheegi kartaa iyadu sheekada caanka ah ee ciyaaraha saylicidu ay hodanka ku yihiin ama lagu soo halqabsado ee muliyo gabar bay ahayd muliyo gabar bay ahayd carabiyad bay ahayd wakan marka waxay tiyaday doonaysa luul iyo doon ninkii jeclaa leenta uu luul buu doonay uu socday Bombay buu tagay Bombay markuu tagay waa ka jilaalkii dabaylihii soo dhaceen dabaylihii markuu badxirankii baa soo dhacay markuu badxirankii soo dhacay waa tawayday waa tale dooyihii Rasuuliya kuwii Reer Saylac yimidey dooyaha Bombay ma bir baa ku jaban amba waan jeclaa inaan soo dhaqsado jilaalshaha jidka igu xayiray bisna ka soo leeyay shimbiray lalay may duulisa ina tiyarada casay
may garab dhigtaa buu leeyahay oo shimbir buu warqad u soo dhiibayaa ya waa ka sheekhyada wax shiraaciya moodayaaye galabtii bay sheekhyada aqaladu carshaan bay ahaan jireen ma jirin maxaa idanay jiingadahan badan carshaan baa la dhisan jiray sheekhyada wax shiraaciya moodaye maxaa doonyihii bumbay helay dhowraysaa galabtii fuulaysaa casarkii doonyihii dee shiraaca leh oo bahal dee shiraacii ku xidhaya eegaysa ina soo socoto waa ka daynatii kolkay dee ima weyday ninkii ma waa aabeedin waan ku dhisaya qasaanadkii reer awdal baa la geliyay 7 cishaa timir cusbur cilaan dee lagu xashay rabti inatood moodo dayax 15 yaabinkii dambe dee lahu iyo curfiga iyo udgoonka ka soo baxayaad yaabto waa ka aabeed dhisay markuu dhisay waa ka ciyaartay la ciyaaraya dee yimid dikada ka soo dagay gabadha loo ciyaarayay waa gabadha luulka u doontay waa gabadha luulka u doontay luulkii xaafadoodii dhigtay ciyaartiiba ku dhacay heleelay waanbe hayaa kurumba way maqashay hadalkiisi ciyaarta daranku soo tiri ku sugay suuge ku sugi waaye maxaad sugi weyde caynigaygow hayaa kurumba alla ku aaway alla way kan halkaa lagu kala tegay maxaa dhacay markaa intaa ka bacdi way dhaceen labada way dhinteen qabrigaa loo kala jeedshay yamuud baa ka dhacday gabadha muliyo asal ahaan yay u dhalatay halkaysay ka soo jeeday muliyo dee ninba waxbuu ku tilmaamaa qaar waxay ku tilmaamaan hindi qaar waxay ku tilmaamaan carab qaar hindi qaar xaboosh laakiin naag waxay ahayd aqoontayda markay ay weydiiyeen muliyo naag wadaniyadan bay ahayd qabaayilkan la aqoona markaa habeenka ninkaasu dhalinyaradi uu doonay gabadha muliyo la yiraahdo ee uu saa ugu heesay ee uu istilmaamay habeenkaas ugu horeysay miyaa oo dooda markii dadku way qaateen oo ciyaarahan bay u qaateen iyaga sameystay dhaqankan iyaga sameystay waa dhaqan la isku afgaran jiray afgarashada calaamad u ahaa oo la isku afgaran jiray ciyaaraha kale ee selac laga ciyaaro maxaa ka mid ah waatan qadija maxamuud mar kale sayliciga waxa weeye waxa la ciyaaraa iyadana waa loo ciyaaraa waxa la ciyaaraa mid neekisa waa la ciyaaraa tan kale ee maxay idanayiin hooyaheeda waa la ciyaaraa hooyanbe waa la ciyaaraa dhaqanna dee waa ta ciyaaraan u leyn anagu ciyaar waxaan leenahay dhaqanahoo aan ciyaarno soo maqli mays beelaha iyagana ciyaaraan helayara la yidhaahdo wulwula la yidhaahdo ya soo maqli mays taana waan ciyaarnaa wulwulan ciyaarnaa heelayarar baan ciyaaraa aan idhaahdo hoydadow hadaagana hoydadow waan ciyaarnaa tu kale yadna waan ciyaarnaa maxay oo ragguna ay ciyaaraan dumarkuna ay kay daba yidhaahdaan saddexley waan ciyaarnaa tu walba waa la ciyaaraa saylici bay caan ku tahay iyadu